halkaan naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed kusoo dhawaada meel kasta oo adduunka aad ku nooshihiin. waxaan rabnaa maanta waxyaabo badan oo qoto dheer in aan qaada dhigno ku dheerana taabahayo meelo badan taabanayo. maantay borogramka aan soo qaadayna waa borogram quwana ah oo dhan walba taabanayo, haba u badnaadee maamul goboleedyaasha dowladda waa un wacyigelin oo ku saabsan yahay. haddii aan idin soo qabto madaxweynaha Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu ku baaqaa nabad maalin walbaba. maamul goboleedyaasha wuxuu ugu baaqaa nabad. maamul goboleedyaasha iskaba sii dhaafe in saacad walba nabad loogu baaqo, waa guryahooda lagu booqdo, loo tagaa, loo dib jiraa, la dhageystaa. waa dad mas-uuliyiina ayakana aynan fiirin dowladda tafdhaxaadka ay gelinhayaan, aynan guul u arkin, ay ayaka laftirkooda mas-uuliyiin iyo waaye. waa dad mas-uuliyiina oo ma arkinoo la rabo in la aamino. meeshan waxaan ku dalkayna wuxuu ku jiraa dib u heshiisiin, wuxuu u baahan yahay nabad. waa inay ka shaqeeyaan oo halka kale gurigiisa intuu uu tago uu yidhaaho walaal waxaad ka leedahay dowladnimadii Soomaaliyeed oo dhulka taalo, maxaad iga leedahay? intaas wax layska weydiiyo. madaxweynaha Soomaaliya aad u jeediin maalin ilaahay keeno wuxuu ku baaqaa nabad. cadowga aad u jeediin oo dad iyo duunya gumaaday wuxuu u baaqaa nabad. taas oo ma arkin oo la dhihi karo waa dad Soomaaliyeed oo ma arkinoo jid xun qaadayaan, la rabo in la wacyigeliyo. dowladda waxa ay ka qabta la ogaadaa. dowladda waa dowlad waxa way mug weynta ma ahan arrin la iska yiraa waxaan go'aan ka qaadano waa ciribtiraynaa, waa la ciribtirayaa, waa lagu soconayaa nabadana waa loogu baaqayaa, waa loogu soconayaa nabadana waa loogu baaqayaa, waa lagu soconayaa nabadana waa loogu baaqayaa. laga quusan maayo. maamul goboleedyaashana ayakana nabad waa in loogu baaqo iska dhaaf. saacad walbaba in nabad loogu baaqo, saacad walba in guryahooda loogu tago walaal waxaa ka leedahay la yidhaah. waa iyukana inayna taas guul u arkin, waa ay tanaasul sameeyaan. dowladdana in tanaasul ay samayso, aanan hal geed lagu dhegin. taas waxay tusaaleynaysaa dib u heshiisiinta dalkayna ayay ka mid tahay. mucaaradnimada dal haddoonan mucaarad lahayn in dal jira maaha. mucaaradka maxaa la rabaa? inuu ku fadhiyo istiraatiiji, waxa uu ku doodayo inay wax istiraatiiji ay ahaadaan. haddii aan iska daba kacno dowladda si in dhalla-aan iyo dhaga la-aan lama rabo. maamul goboleedyadana inaan in dhalla-aan iyo dhaga la-aan iska daba kacno lama rabo. dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay in ay markaas waxaasoo dhan xiriiriyaan. waxa loo dhigi doono oo lagu loolamaayo oo xabadda loo dhigaayo oo hooyo Soomaaliyeed ay ku gablamayso waa dhalinyarada Soomaaliyeed. haddii dhalinyarada Soomaaliyeed 80% waa dhalinyaro aqoon leh maantay wax fahmi karaan, waxaan dhihi lahay in ma arkinoo intaasoo dhan in dhalla-aan iyo dhaga la-aan la iska daba kicinay, balse ay ku fadhido istiraatiiji. istiraatiijigaas muxuu yahay? dowladda waxay ku qaldantaa loo sheego, maamul goboleedka wuxuu ku qaldan yahay loo sheego, mucaaradka wuxuu ku qaldan yahay loo sheego, oo dadka la iska daba kicin in dhalla-aan iyo dhaga la-aan. dalkan iyo dadkan ununkaa iska leh, calanka iyo dowladnimada ununkaa iska leh. waxaasoo dhan maadaama aan leenahay waxaa laga rabaa si dhexdhexaad inaad u wajihi kartid. marka aad qof mas-uul aad tahay, marka aad qof waxgarad tahay, marka aad qof aqoon-yahan aad tahay, marka aad qof wariye tahay, marka aad gabar Soomaaliyeed oo aqoon-yahan tahay,
gabdhaha Soomaaliyeed waa codka ugu dheer ee dalkayna uu leeyahay meeshii 10 qofood shaqo looga baahan yahay waa inay ahaadaan 4 igaar inta kale ay gabdha ahaadaan shaqooyinka hoose la sii gabdhaha waa laf dhabarka dadkan iyo dalkan 30 sano burburka ku jiro kaalinta koobaad gabdhaha ayaa iskale malahan nimanka xaq uma lahan waa in shaqooyinka waliba fudud gabdhaha ay xaq u lahaadaan gabdhaha loo hiiliyo hooyada waa mid dalkan intaan soo gaarsiis waxaad u jeedaan dawladda hadda baarlamaankayna ee dhibka badan laga soo maray wuxuu iska indhatirayaa guul isbadaya inuu lama shaqo oo usuga ka shaqeeyo ayuu guul mooday dawladdana waxay guul mooday ay ma arkin oo markaas ay isku koobaysa inay biri ka maalin dawladda soo naqayso ay cod ku hesho ay asaga ay wasiir ka dhigto xildhibaanka taasu dalkayna uma qalanto xildhibaanadana uma qalmaan oo wax ku haboon maahan dawladdana wax ku haboon ma waa taas dhalinyarada Soomaaliyeed oo dadkan dalkan dhaxlayaan maxaa intaas oo jaamiciin oo dhalinyaro Soomaaliyeed ahaan leenahay shaqo ma haystaan maxaa kalifay in laba shaqo hal qof la isugu daro af wax una wuxuu rabo ma tilmaami karo baarlamaanka sharafta iyo karaamada ay adduunka baarlamaan uu ku leeyahay waa inay gutaan baarlamaanka Soomaaliyeed ee sharcigan dhameystiran ee qodobada badan oo dalkayna uu lahaa laga maarmaanka inay dhameystiran ay indhaha ka laabanin aynan guul moodin wasiirnimada lagu qanciyaa dawladana aynan guul moodin in ay xildhibaanka ay wasiir ka dhigto sida ay danaha ay leedahay ay baarlamaanka aga hesho unuka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan tilmaamaynaa jid markaas dhaxdhaxaado oo mustaqbalka aan ka dhaxli karno aabayaasha hadda wax hogaamiyaan iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ma arkin oo khibrada qaadanayaan ee dadka la shaqeynayaan intaasoo macluumaad ximbaarsan la shaqeynayaan waa in aan ka dhaxalnaa kubaas meesha ay wadanka ku hagayaan haddii aan indhaha ka laabano dad jira naqamayno waxaad u jeediin mararka qaarkood in mucaaradka kaliya daab weyn loo haasto oo markaas dhinac laga marayo oo dawladdii in dhalaan iyo ma arkino dhagal aan la iska daba kacayo maamul goboleedyaasha in dhalaan iyo dhagal aanba la iska daba kacayo ma soconayso mucaarad dal hadowna mucaarad lahaynin dal jira ma aha dal cadaalad ku dhisnaahaya ma aha wuxuu naqanayaa aakhirkiisi dal kaliis talisa ayuu naqanayaa mucaaradka istiraatiiji ayuu ku fadhiyaa oo wadanka leeyahay waa in la yiraaho warniihow inta fadhiiso dhibka naga dhaaf loo caqli celiyaa mucaaradka hal caqli la'aanaba mucaaradku isugu jiraan intaasoo dhan dadka Soomaaliyeed aqoonyahanka waxgaradka hooyooyinka gabdhaha Soomaaliyeed ayaa la rabaa inay u caqli celiyaan markaasna wada sax isugu keenaan insha Allah ta'ala wacyigelinta waa wax loo baahan yahay dalkayna u baahan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad u jeediin oo leel iyo nahaar qorraxda iyo dhadada iyo dhibaatada iyo ma arkino cadawga aad u jeediin u babacadhigayaan mushaarka liita ku shaqeeyaan haddana ma arkino ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalin leel iyo nahaar haday maamul goboleed tahana banaanka u taagan haday dawladda dhaxan tahana banaanka u taagan dhalinyaradii Soomaaliyeed oo mutadawiciinta ahayd oo wacyigelinta iyo dawladda iyo maamul goboleedka ununka isku wada leh wax dad kale leeyahay maaha waxaan ununka wada leenahay waxa soo dhan waxa dhaxlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dhaxlayso taas ala daraadeed waxaana laga rabaa ciidan xoog leh oo isu dheeli tiran oo maamul goboleedka fikrad ka timid fikrad federaalki ka timid fikrad aqoonyahanka ka timid fikrad mutawiciinta Soomaaliyeed oo rayidka oo danyarta ahayd aqoonyahanka ka timaado intaas
hooyooyinkii gabdhihii dhaxda inta la dhigaa ciidan saas ku salaysan ayaa la rabaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo u jeedin dhibaatadaas ku shaqeeyahay haddiina istiraatiiji dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay muwaafaq ku yihiin ayuu ku adkaysan karaa askariga Soomaaliga ah xuquuqdiisana ku heli karaa laguna tababari karaa haddii taas la gaar maro amba la baal maro oo baarlamaankana baal maro dowladana ay baal marto maamul goboleedkana oo baal maro mas'uuliyiinta iyo aqoon-yahankana oo baal maro dhibaato ay dalkeen u tahay dhalinyarada Soomaaliyeedna wax fiican markaas ma dhaxlayso laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u baahanahay inaan dhaxalno wax fiican salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idinku dheeraaday sidaas iyo nabad